ugu horreyntii horta waxaan rabaa inaan ka bilaabo cudurkan waa cudur oo ka gudbay marka la leeyahay endemic wuxuu noqday pan endemic ayaa lagu sheegay hadda United Nationska OMS-ka WHO sababtoo ah qaaradaha oo adduunka oo dhan baa ku faafay marka waa cudur maaragtay aad la iskugu gudbiyo cudur maaragtay maxay ahayd aad iyo aad u daran oo looga cabsi qabo siiba markuu cudurkan ilaahay nooma keeno oo Afrika soo gaaro sababtoo ay tahay waxaa la ogyahay cudurkan inuu maaragtay maxay ahayd Afrika inaysan lahayn adeeg caafimaad oo tayo leh haddaan idinkaaga warramo meeshaan ku noolahay cudurkan waxa weeyaa dowladda Talyaaniga aad iyo aad u saameeyay hadda wax kaleeto oo la qabta ma laha isbitaalladii way iskor jiifaan dadka meel la kala geeyaa la yahay wixii adiga deganaay oo idiloo dhan bannaanka loo soo saaray annaga xataa waxaan ku jirnaa xaalad degdeg ah isbitaalkii dadkii oo u baahnaa dhammaantood ma qaabili karno marka waxaana la yidhi waa inaa qaabishaan dadkan maaragtay coronaviruska soo dushooday marka dadka coronaviruska uu haleelay ayaa hadda noqday kuwa ahmiyadda ugu weyn la siinayo marka loo eego bukaanada kale ee isbitaalka u baahan marka bukaanada kale xataa annaga saas uma fiirino waxaa dhici karta xataa dadkii maaragtay qalliinkii waxaas u baahnaa in maaragtay dib loo dhigo dadka maaragtay oo sokorta qabay ayagana dib in loo dhigo wixii oo dhan waxaan aragnaa qaar maaragtay isbitaallo ah oo dadkii oo dhan laga soo saaray oo dadkan cudurka haleela keliya coronaviruska oo lagu daaweynayo waxaa la dhisay tendooyin maaragtay isbitaallada hortooda laga dhisay kuwaasoo maaragtay lagu baaraayo bal haddii maaragtay maxay ahayd bukaanka oo hayo asaamaha maaragtay lagu garto cudurka coronavirus ilaahay hadda ma jiraa qof Soomaali ah oo cudurkan uu haleelay guud ahaan Talyaaniga ogaanta way jirtaa meelo qof oo Soomaali laba qofood oo Roma jooga baan aan hadalnay aan ogaanay iyo hal maaragtay meesha Lombardia jooga marka waa laba qof oo jooga ee Roma iyo qof jooga Lombardia saddexdaas qof oo Soomaali ah ayuu cudurkan haleelay ilaa iyo hadda inta aan ognahay wax u geeriyooday oo Soomaali ah ma maqasheen wali maya ilaa iyo hadda ma jirto maxay tahay inaan ku sheego waxa weeye maalinta ka dambayso waxa waaye maaragtay double boosi noqonaya maaragtay maxay ahayd saameynta cudurkan dadka qaadaya maxay tahay sababta Yurub oo dhan Talyaaniga ka kaliya yeeshay ee kiisaska ugu badan wadanka Talyaaniga ee xanuunkan uga jira hadda wallahi waxyaalo badan horta way ku sheegayeen sababtoo ay tahay Talyaaniga waa dawladda kaliya oo samaysay shaybaar ballaaran ilaa iyo hadda waxaa la ogyahay 18,000 baaritaan lagu wada sameeyey intaas adiga badina waxay noqdeen positive bay noqdeen haddii loo fiiriyo wadamada kaleeto Yurubta ah ama Ingiriiska ama Jarmalka ama Spain ama maaragtay kuwa kaleeto hadday ugu bataan shaybaarkooda waa 400 500 kama badna marka inta aad badinaysay shaybaarka dad badan baa soo baxay haddana waxaad ogaanaysaa in cudurkan 80% adna dareemayna xataa in uu ku haayo marka wuxuu la mid yahay maxay ahayd flubo la mid yahay oo qandho wato adiga marka waxaad ogtahay marka laga hadlayo Afrika oo dabcan aan adeeg caafimaad oo meelaha qaar dhameystiran uu ka jirin in khatar ay ugu jirto in xanuunkan uu yimaado meelaha ugu badanna haddii aan tusaale Soomaaliya soo qaadano waxaan aragnaa iyada oo la adeegsanayo qalabkan heer kulka qofka lagu cabiro marka qalabka macnaheedu ma waxay tahay in uu sheegayo qofkan inuu qabo xanuunkii coronaviruska iyo in kale aqoontaada horta waxa waaye waa tallaabada ugu horeyso fiican in la qaado fa in maaragtay maxay ahayd in qandhada dadka laga cabiro oo bal la ogaado bal ninkan haddii oo wax qandho iyo waxa sadii hayso laakiin waxaad ogaanaysaa qandhada cudurro badan baa qandho keeno waxa waaye durayga caadiga ah oo maaragtay nagu wada dhaco ayaa qandho 39 ayuu keenayaa ma fahanteen marka ugu horeyntii waxa weeye marka lagu arko qofka qandho inuu qabo waa shakiga ugu horeyso waay laakiin waxaa xaqiijinaysaa marka aad baaritaan oo tamboon aad ku samaysid oo positive noqdo markaas aad ku samaysid horey ninka bukaanka
waxaa la geenayaa meelaha lagu garantiiraynaya ilaa meeshaas oo ka jooga laakiin cabiraadda oo qandhada wax oo sax ah kuu sheegi mayso keliya qofkan inuu qandho qabo ama kulul yahay uun bay sheegaysaa halahaas ka badan ma sheegayso haddii aad og tahay dabcan kolba waddanka aad joogto waa waddamada horumaray ah caafimaad ahaanna aada u xoogan soomaaliya ma is leedahay waa yaalaan qalabyada shaybaarada ah ee awoodi kara in ay sheegaan qofkan inuu qabo xanuunkaasi iyo in kale way yaalin aad iyo aad u baaraan waday hadda aan kuu sheegayay ilaa adiga 19 baaritaanay sameeyeen waxaynu ku sameeyeen maaragtay geedkan tamboonka la yiraahdo oo kulligooduba noqday maaragtay maxay positive laakiin maadaama tamboonkan aana ummadoo dhan lagu sameey karin waxay sameeyaan maaragtay maxay magaalooyinka oo ka dhaco cudurkan waxaa lagu sameynaa garantiir cidna gali ma karto cidna ka soo bixi ma karto hadda tusaale meesha aad joogtaan waa la istaajiyey way adinku hadda ma karantiil ayaa tihiinoo Lombardia ma laga xiray Talyaaniga inta kale wallahi Lombardia waxa waaye meelo badan waxa maaragtay maxay red zone ay u bixiyeen annaga hadda meeshaan joogno waxa waaye yellow zone waaye wali ma gaarin red zone waxa waaye kuwa red zone ka ugu dhownahay marka waa qatar magaaladan joogo ayaa waxa lagu arkay ka badan 120 qofood cudurkaas uu ildaran intaasna way maaragtay maxay ahayd isbitaalka bay jiiftaan way astaamihiisa cudurkan maxaa kamid ah laga yaabay mararka qaar Soomaaliya xilliyada u dambeeyay ama waqtiyada qaar waxa yimaada xanuun ay Soomaalida u taqaano kaduudiyaha oo dadka ku dhaca kaasoo qaarkiis dad ay u geeriyoodeen meelaha qaarna wali Soomaaliya ka jiro ma wax farqi oo u dhaxeeya ayaa jira is leedahay xanuunka kaduudiyaha iyo coronavirus maya waxba isku ugu bandhawa sababtoo ay tahay kaduudiyaha waa chikungunya ayaa la yiraahdaa waxa keena maaragtay maxay ahayd viruskaasna waxa gudbiyo kaneecada gudbiso marka chikungunyaha ama kaduudiyaha maxay ahayd 7 ilaa 10 maalmood baa ku haynaya calaamada ugu weyn waxa weeye maaragtay arthritis waxa maaragtay isgooyaasha oo jirka ah ayaa maaragtay maxay ahayd waxa galaya maaragtay inflammation meeshaas ay dur ay ku qaadayaan marka qofkii oo dhan baa isku soo kaduudanayo laakiin nasiib wanaag waxa waaye cudur maaragtay laga kici karo oo aan mar dambe kugu soo laabanin calaamadaha coronavirus-kana waxa waaye aagiisa ugu muhiimsan sanbabaha buu ka aadaya oo neefta buu kugu celinaya oxygen-ka buu kugu yareynaya marka dambe tan waa u dhimanaysa marka midda kale aan rabay inaan ku darsado waxa waaye chikungunyaha cid kasto ayuu maaragtay saameyn karaa coronavirus asagoo cid kasta saameyn karo haddana wuxuu u daran yahay dadka maaragtay maxay ahayd waayeelka ah dadka maaragtay maxay ahayd oo difaacooda jirka aad iyo aad u hooseeya iyo dadka maaragtay maxay ahayd cudurrada oo maaragtay daba dheeraada chronic disease kuwa qabaan marka dadka dhalinyarada waxaad leedahay aad uguma badna cudurkan maya dhalinyarada way iska difaaci kartaa hadda waxaa dhici karta dad badan oo maaragtay coronavirus qabo laakiin aana maaragtay wax calaamado ah aana banaanka keenaynin maxaad is leedahay waxa waaye waa dadka u gudbiyo dadka kaleeto waay dabcan ilaahay naga haye Soomaaliya iyo qaaradda Afrikaba meelo badan cudurkan wali soo ma gaarin kamana jiro talada aad dhakhtar ahaan jeedinaysaa maxay tahay haday ahaan lahayd guud ahaan shacabka Soomaalida iyo dawladda intaba horta waa mid 6 talo ayaa ama 7 talo la qaataa waa mid ugu horeysa waxa waa gacmaha inaad dhaqatiin aad si fiican u maaragtay u meeratiin midda labaad markaad dibadda aadaysiin inaad gacnihiina ka dhowrtaan inaad afka ama sanka ama indhaha aad ku xoqotaan midda kaleeto inaad maaragtay dadka dhawaanshaha inaad ka fogaataan midda kaleeto shumiska noocoo doona ha ahaado ama habka la isa siinaayo taasna inaad mamnuucdaan waayo midda kaleeto waxa waaye markii aad adiga xanuunsan tahay oo aad geedka cudurka qabtid waa maskarada inaad qaadatid aad sanka ku xiratid ama haddii aad qof maaragtay bukaan ah oo difaaca jirkiisa oo aad u liito waxaan kugula talinaa adiga geedkan camal oo bukaanka ah maxay geedkan maskara ah inaad ku xiratid taas waxa waaye
bulshadan aan u jeedana inay taxadar aad iyo aad muujiyaan inay ka fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin in aysan maaragtay markay qofka la hadlaayaan maaragtay in ay ka dheeraadaan ilaa iyo 1 mitir dowladda waxaan ugu maaragtay fariin u dirayaa siiba maaragtay wasaaradda caafimaadka oo aan u maleeyo in ay dadaal aad iyo aad u wado laakiin arrintan in ay maaragtay mas'uuliyad u saarto guddi oo takhaatiirta magaalada joogto waddanka joogto in xil loo saaro ayagaa yaqaaniin maaragtay cudurkan ayagaa yaqaaniin sida cudurka la iskugu gudbiyo ayagaa yaqaaniin sida cudurka looga hortago inkastoo cudurkan uusan daawo lahayn talaalna lahayn waa dhaqan wanaag in la qaato weeyaan marka takhaatiirta waa in safka hore la geliyo sida hadda waddanka aan joogno intaasoo takhaatiir ah ayaa maaragtay maxay isbitaal u jiifto oo ay ka qaada laakiin takhaatiirta maaragtay safka hore aagga hore dagaalka ku jiro